walaalayaal meel kastoo aad joogtaan caalamka waxaan idinkula talinayaa wax kasta oo keenaya qofka shaqsiga ah iyo qoyska iyo degmada uu degan yahay qofka wax kasta oo keenaya caafimaad wanaagsan the conditions xaaladka aynu ku noolnahay inaynu wax weyn ka bedelno xaaladaha aynu ku noolnahay ee dhibka inoo keenaya qaarkoodna aynan ka warqabin in aanu wax weyn ka bedelno waxaan uga dan leeyahay waxyaabo badan waxaa jira culays dadkayga ku haya oo ogaal iyo ogaal la'aanba u saameynaya caafimaadkooda oo ay ugu horeyso dagaalada kuwa dadban iyo kuwa tooska ah kuwa inta qoryo la isu soo qaato oo la isxabadeeyo oo dad iska dhaawaco la iska dilo iyo kuwo sida kale loo dagaalamo siyaasaddu waa dagaal aan dhammaanayn bay Soomaali ku jirtaa markii ay qoryihii dhigeen oo aan la hubin xitaa inay dhigeen oo ay at least ay qof waliba uu qoryihiisii meel dhigtay dagaallo waxaa jira aan dhammaanayno maskaxiyan dadkaygo ay weli ku jiraan kuwaasi waxay dhibaato ba'an u geysteen Soomaali meel kastoo caalamka joogtay waxaan aad u daneynayay markaan public health-ga galay waxa loo yaqaan war and health dhibaatada dagaaladu ay ku leeyihiin caafimaadka weli iimaysan suuragelin in aan dadkayga u soo bandhigo wixii aan ka soo bartay ama iiga baxay maxaa yeelay waxaad weli isleeyahay dadku ma i bisla oo dadku dad waaqica iyo runta diyaar u ah may aha dadku dhibaatooyinkii dagaaladu ay ku keeneen ayaa weli ka muuqanaya maskaxiyan iyo badaniba physical oo dhaawacyadii ka soo gaaray dagaalada iyo dhaawacyadii maskaxiyan naga soo gaaray dagaalada aynu isku sameynay way naga muuqanayaan welina diyaar uma aynan yihiin aan runta isu sheegno taasaa waxay keenaysaa in aanu khayaali aanu mar kastaba isku sasabno anigu xagga aan ka soo gelayo waxay tahay dhanka caafimaadka dadweynaha qofka Soomaaliga ee Looyacadde ku nool ilaa iyo Raas Caseer ilaa Raas Kamboni waa Soomaali qofka Soomaaliga ee Djibouti ku nool iyo qofka Soomaaliga ah ee ku nool Soomaali galbeed iyo NFD waa Soomaali waxaana doonayaa dhammaantood inay ku wada noolaadaan xaaladda ugu wanaagsan ee qof bini'aadan uu ku noolaan karo caafimaadka ah nolosha ugu heerka sarreysa ee ku noolaan karo qof bini'aadan ah hadday noqon lahayd deegaanka uu ku nool yahay nadaafadiisa environmental conditionska uu ku nool yahay qofka hadday noqon lahayd environmentiga markaan ka hadlayo waxaan ka hadlayaa dhulka ay degan yihiin hawada ay qaadanayaan biyaha ay cabayaan cunnada ay cunayaan iyo waxyaabo badan oo la mid ah intuba waa diiqaysan yihiin intuba waa wada fadaraysan yihiin dadkayga meeshay ku nool yihiin Soomaalida meeshay ku nooshahay intaasi oo idil hawadoodii biyahoodii cunnadoodii dawadoodii intuba waxbaa ku qaldan oo sidii la rabay ma aha sidii wax looga qaban lahaa xalkeedii baa lasaga baahan yahay ciddii wax ka qaban lahayd baa loo baahan yahay taasina waa taan doonaya insha Allahu 2021 inaan u dhaqaaqo aan marba toojka ku ifiyo maxaa yeelay marka aan doonayo in dad la hadlo dhibka ay haystaa wuxuu yahay ma dadkoo dhan baan la hadlaa oo hadal common ah oo dadka dhan ay wada fahmayaan baan ku hadlaa mise waxaan ku hadlaa dad aan maskaxda ku hayo oo digriyo iyo aqoon u leh mise siyaasiyiin baan la hadlaa oo iyagu policy makerska ah yaa qofka aad la hadlaysid waa dhibka kolay qof kasta audience-ga uu doonayo inuu la hadlo uu maxaan ku radaa uu badanaaba uu marka hore inuu identify gareeyo inuu marka hore xusho cidda uu la hadlayo hadduu alla idmo sanadka inoo soo socda waxaan jeclahay dadka iyagu si ay waxaasoo dhan uga hagaagaan in aanu isu sheegno waxyaabo badan dad badan oo igu xiran baan runtii waxaan arkayaa oo aad u daneynaya arrimaha caafimaadka shaqsiga iyaga haysta maadaama anigu aanan ahayn dhakhtar
dadka tabiiba ee aan ahayn dhakhtarka dadweynaha guud caafimaadka dadweynahan ku takhasusay waxa aan shaqadaydu tahay la ii soo tababaray aana ku shaqeeya waxay tahay in caafimaadka dadweynaha guud hadday noqon lahayd waddan Soomaaliya hadday noqon lahayd gobol Washington State iyo haddii ay noqon lahayd meelo kaloo la mid ah marka maadaama taas aan waxyaabo badan oo ilaahay ii sahlay in aan kaag dhowaado oo aan qayb ka noqdo waxaan jeclahay in aan aqoontaas uga faa'iideeyo dad badan oo arday ah oo wax baratay iyo dadka markaa ay arrintaasi wax tarayso ee Soomaalida guud iyo kuwa u taliyaba marka dagaalada ha la yareeyo dagaaladan dhammaan joogtada ha la yareeyo maxaa yeelay dadka iyagu waxa la isbarbardhigay marka wadanka uu qasan yahay oo dhibaatada wadanka ka qasan tahay oo wax isku cakiran yihiin dadka dibadda joogana haddii la cabiro markarada dhiigooda sida dhiigkarka blood pressureka cholesterolkooda waxyaabo badan oo stress hormoneskooda iyana maxaan ku kor bay u kacayaan correlation baa jira dadka qaarkood waxa ay noloshoodii ay dhaawac u gaadhay wadankii oo aan deganayn ka waran wadankii oo noo degan oo barwaaqo ah oo adiguna aad dibadda ku nooshahay wadan waxaad heli lahayd oo maxaa lihi jiray contribution badan ku samayn karaysid hadday noqon lahayd maskax hadday noqon lahayd dhaqaale hadday wax kasto aad hawootid baad wax u tari karaysaa laakiin wadan dhiigaya asaga dhan dhiig baxaya 24 saac aanan harsanayn waxa weeyaan aad bay u adag tahay dadkii dibadda joogana way ku dhiboodeen kuwii gudaha joogana way ku dhiboodeen marka walaalayaal waxaan jeclahay in aanu isu kaashano aanu runta isu sheegno aanu isgacan qabanno maxaa yeelay walaalkaaga haddii uu daalimka yahay iyo hadduu madluumka yahay labaduba waa tii nabigeena uu yiri u gargaaro maxaan ku rahdaa midka daalimka ah waxa weeyaan wuxuu sameeyaa laga qabanayaa oo labaduba diinta inoo sheegtay marka waxaan ku soo xiriyaa waxay tahay ilaah waxaanu ka baryeynaa 2020 inooga dhigo sanad barwaaqo oo aynu dadkayaga ay ka baxaan waxa ay muddada ku soo jireen waxaa kaloo ogaata xagga caafimaadkana walaalayaal 20 sano ama 10 sano ugu dambeeyay caalamka cudurro waaweyn baa ka dilaacay cudurradaas oo ay ka mid ahayeen SARS oo ay ka mid ahayeen MERS oo ay ka mid ahayeen Zika oo ay ka mid ahayeen Ebola oo ay ka mid ahayeen swine flu oo COVID-19 uu ku jiro intuba cudurro waxay ahayeen pandemic ah oo xayawaanaad ka soo baxaya annaga cudurro kale waxay noo dheradanahay Soomaali ee xoolaheena ka soo baxa ama mar kastaba aynu magacyo ku sheegno weli waxayna haysta daacuun iyo kaadi dhiig iyo malaria iyo TB iyo cudurradii rigliga ahaa ee endemic ahaa ee dhulka yaalay weli way joogaan oo ma aysan tegin waxaa kaloo inagu soo kordhay cudurradii cusbaa ee chronic ahaa ee kaadi sokorta iyo wadna xanuunka iyo wixii dhan way inagu soo kordheen oo sanadihii ugu dambeeyay kansarkii baa inagu soo kordhay oo batay environmentigii aan ku noolayn baa isna aad u hallaabay sun badan baa wadankii ama xaasidnimo loogu soo shubaa ama inagina aanu xaasidnimo isugu ganacsanaa oo runtii dhaqanka iyagu aad u doorsoomay waxaasoo dhanna waxay u baahan tahay dad aqoonteedii leh keergaraynaya ummadii oo ka fahmaya haddii kuwa jooga aysan fahmeyn caagan ay caanihii ku bedesheen halkii maxaan ku rahdaa dhiil iyo ay isticmaal lahayn hurubkoodii oo ay ka baxeen oo caag iyo maxaan ku rahdaa waxyaalo badan ay isu bedeleen waxaasoo dhan toxigii ka yimid chemicalkaasi ay dadku qaadanayaan raadka uu ku reebayo ummadda iyo siday ku ogaan lahayd cid ka hadashaa loo baahan yahay waxaasoo dhanna waxay noqonaysaa hal qof keliya iyo qolo keliya ma qaban karayso waa ummad oo dhan oo isu tagtaa oo wax ka bedeshaa nolosha in wax kama bedelmayso hadday innaga oo dhan aynan wax ka bedelin marka waxaan rajaynayaa ilaah inuu nooga dhigo sanadan soo socota ee maanta caawa inoo dhalanaysa 1 iyo 2 maxaan ku rahaa sanada 2021 ilaah waxaanu ka baryeynaa oo anigu aan ka baryayaa inuu nooga ka dhigo sanadkii Soomaali ay nabad xasiloon cad iyo caano gaajadan ay ka baxaan faqrigan ay ka baxaan cilmi sugan ay helaan cibaado ay helaan diintooda ay saldhigato noloshooda ay u saldhigato ayaan ilaahay ka baryayaa
idinna insha allahu aamiinta noo dhaha sidaas iyo nabadgelyo sanad wanaagsan sanadda 2021 anigoo ah maxamed aadan cali waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan